طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. waxaa halkan uga hadlaynaa maanta waxaa loo yaqaano convention afka Soomaaliga ah waxaa lagu yiraahdaa fansaar wadaag. conventionku afka Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa fansaar wadaag ayaa lagu yiraahdaa. haddaba muxuu yahay fansaar wadaagu? fansaar wadaagu wax kale ma ahan, waa waxaa dhehnaa laba trigonometric function ama laba fansaar oo trigonometry ah waxay noqonayaan fansaar wadaag ayay noqonayaan. waa marka isla ekaadaan qiimo ahaan marka wadarta xaglahoodu ay tahay xagla isquminaya oo complementary ah ama 90 degree ah. tusaale haddii laba trigonometric function aan aragnay in qiimahooda ama value-goodu uu sii noqonayo marka wadarta xaglahoodu uu yahay 90 degree, kadib waxaan leenahay labadaas fansaar waxay yihiin waa laba fansaar oo ah fansaar wadaag ayaan oranaynaa. waayo haddaba fansaar wadaag marka waxaa ka dhalanaysa formula ama qaacida ayaa ka dhalanaysa loo yaqaano convention identities. identity marka waa formula. haddaba maxay yihiin qaacidooyin ka dhalanaya fansaar wadaagnimada? fansaar wadaagnimada qaacidooda ka dhalanaya maxay tahay? tusaale trigonometry functionka marka laga hadlayo lixda trigonometry function waxay leeyihiin fansaar wadaagay leeyihiin oo min laba ah. tusaale sin waxaa fansaar wadaag u ah cosna waxay fansaar wadaag u tahay sin. taas waxaa laga wadaa marka sin maadaama ay cos fansaar wadaag u tahay waxaa leenahay sin angle walba ay wadato waxay la ekaanaysaa cos ayay la ekaanaysaa. coskaasoo angalkeedu yahay 90 oo laga jaray angalka ay sin wadato. tusaalaada meeshan waxaad uga jeedaa sin theta ayaad uga jeedaa. sin theta waxay la mid tahay leenahay cos 90 degree minus theta ayaan oranaynaa. okay, taa waxaa la mid iyadana cos iyaduna waxaa leenahay maadaama ay fansaar wadaag la tahay sin cos iyadana angle walba ay sidato ama angle walba ay wadato waxay la ekaanaysaa qiimo ahaan ayaa la leeyahay sinkaasoo angalkeedu yahay 90 darajo oo laga jaray angalka ay cos wadato. meesha hadda waxaa metaalo cos theta, kadib maxay la ekaanaysaa cos theta sinkaasoo angalkeedu noqonaya 90 oo laga jaray angalka ay cos wadato theta. sidoo kale tan iyo cot ayagana waxay isku yihiin convention ay isku yihiin ama waa laba fansaar wadaag ayaan oranaynaa. okay, maadaama ay tan iyo cot ayagana fansaar wadaag yihiin kadib waxaan leenahay tan oo xagasheedu yahay theta waxay la ekaanaysaa cot oo 90 degree angalkeedu yahay oo laga jaray angalka tan ay wadato theta. okay, cot iyadana waxay la ekaanaysaa iyadana tan ayay la ekaanaysaa qiimaha waa goormee waa marka xagasha tan ay noqoto 90 degree oo laga jaray angalka cot ay wadato theta. cosec iyo sec ayagana waa labadaas waxaa la yiraahdaa waa laba fansaar wadaag ayaa la oranayaa. cosec iyo sec waa fansaar wadaag ayagana. sidaa laajigeed cosec waxay la ekaanaysaa theta, sec ayay la ekaanaysaa oo xagasheedu tahay 90 darajo oo laga jaray theta. sidoo kale sec ayadana waxay la ekaanaysaa cosec oo 90 darajo xagasheedu tahay oo laga jaray theta waa xagashay wadato sec. haddaba meesha waxaa kaga muuqda marka laba function hadday isku yihiin convention ama laba trigonometry function markay yihiin fansaar wadaag waxaa leeyahay qaacidada ka dhaxdo ka dhalanaysa waxaa waaye mid ayaa waxoo la ekaanaya midka kale oo xagashiisu tahay 90 darajo oo laga jaray xagasha kan hore uu wato. haddaba haddii lagu yidhahdo marka sin a tusaale waxaa waaye fansaar wadaag ahaan u qor ama fansaar wadaageed u qor waxaa dhehaysaa markaas cos 90 degree oo laga jaray ayaa leedahay a angalka maadaama uu theta iska bedelayo oo ay noqday. marka waxaa la rabaa isbedelka ku dhacaya angalada inay ardaydu la janqaadaan. qasamaan in theta la isticmaalo. theta waa Greek letter, a la isticmaali karaa b haddii rab markaa number la isticmaali karaa. tusaale hadda taan soo qaato sin 30 degree waxaa ku qiimo noqonaysa cos 90 degree oo laga jaray 30 marka 30 laga jaray waxaa soo baxay 60. fiiri baaritaan ku sameey sin 30 degree qiimaheedu waxay ahaan jirtay half ayay ahayd sooma. cos 60 degree qiimaheedu waxay noqonaysaa half, taasoo tilmaamaysa in sin iyo cos labadaba yihiin laba fansaar wadaagan yihiin. okay, waxaa marka qaacidadan marka ay sax noqonaysaa haddii radian ahaan loo bedelo. hadda meesha waxaa yaalo degree marka waxaa loo ictibaariyey ama loo qaatay in theta ay tahay degree ay ku halbeegan tahay. haddii theta ka waran ay ku halbeegnaa lahayd radian ay ku halbeegnaa lahayd kadib meesha 90ka hadhooti waxaa loo bedelayaa pi over 2 maxaa 90 degree radian ana wuxuu dhigaa pi over 2 ayuu dhigaa. that means waxaa run noqon kara marka sidoo kale sin theta maxay la mid tahay haddii lagu yiraahdo as radian waxay noqonaysaa cos pi over 2 minus theta. as degree maxay noqonaysaa 90 degree minus theta.
طيبة يا طيبة يا داوى العيانا